السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديشة قيمها يقايا لو دلهانتي مملكة سواد شوكتان halkani waa telefishinka madaxa banaan ee bulshada fi xaruntiisa guud ee magaalada Hargeysa daawadayaal waxa la soo gaadhay amintaan hadeero kala war wixii dalka iyo dibadda naga soo gaadhay aan hawadeedii ka soo baahino warkana waxa uu diyaar u dila socodsiin doona hadii Allah uu doolidmo anigoo Cabdiraxmaan Cabdillaahi Maxamed Fantastiga madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay mid kamid ah shirkadii ay xukuumaddiisu heshiiska kula gashay saaminta shidaalka dalka xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda madaxweyne Axmed Silaanyo ayaa wali isku maandhaafsan qaabka loo tagay shirka wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya kadib markii ay xukuumadda madaxweyne Axmed Silaanyo ay shaacisay in aanay shirkaasi aanay ka qayb galeynin xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland mudane Cali Maxamed Waran Cadde ayaa waxa uu jawaabada ka bixiyay hadal ka soo yeeray gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee cud injineer Faysal Cali Waraabe daawadayaal kuwaasi waxa ay qodobada habeenkan caawa wararkeena ugu doorka roon haatan ku soo dhawaada warka oo faahfaahsan madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Silaanyo ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay mid kamid ah shirkadaha ay xukuumaddiisu ay heshiiska kula gashay saaminta shidaalka dalka madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay madaxda sarsare ee shirkadda DNO oo ah shirkad Norway isla markaana kamid ah shirkadaha heshiisyada ay la gashay xukuumaddiisu inay sahamiyaan isla markaana ay soo saaraan batroolka ku jira dalka kulankaas ayaa markii uu soo dhamaaday waxa warfidiyeenada uga waramay ujeedada مسؤولينta sarsare shirkadda DNO ay ku yimaadeen Soomaaliland wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Maxamed Biixi Yoonis iyo wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland Xuseen Cabdi Ducaale waa shirkad aynu la saxeexnay heshiis bishii afraad sanadkii ina dhaafay waxa xasuusataa saxaafaddu inaanu heshiiska ku saxeexnay Washington DC intii way soo diyaar garoobayeen shirkaddu markaa waxa weeye waa DNO sidoo wasiir khaarijigu sheegay waa shirkad Norwegian asaaskeedu yahay laakiin Middle East ka ay ka shaqeysaa iyo North Africa MENA based company weeye waxaanay wadataa shuraako la shariika block 18 kala shaqeynaya 40% saamiga leh marka hadda shirkaddii shaqadii ay doonaysaa inay u diyaar garoodo way soo degtay laba bilood horteed ayay xafiis ka furatay Hargeysa maareeyihii ay dalka u matalayay oo isaguna yimi Maxamed Jaadiriye oo inala jooga oo imika halka laba bilood inala joogay oo hawshii bilaabay inuu shirkaddii u sameeyo xafiis ay ka shaqeyso waxa maanta marka ay ugu yimaadeen dalka inay soo salaabaan madaxweynaha oo ay u sheegaan inay shaqadii diyaar u yihiin inay hor ka bilaabaan oo madaxdoodii DNO iyo shirkad iyo shareholder muxuu ahaa partnerskooda maanta ay amaan ka yimaadeen DNO iyo Petrogas oo halkan inoogu yimid oo block 18 la siiyay waxaanu aad iyo aad ugu soo dhaweynaynaa madaxda shirkadda oo aanu filayno inaanu si fiican ula shaqeyno wasiirka macdanta Xuseen Ducaale aad iyo aad ula shaqeeyay marka waxaan oranayaa aad iyo aad baan soo dhaweynayaa waxaan Ilaahay ka baryayaa in shaqadaasi hawsha Ilaahay inoo fududeeyo waxaanu aaminsanahay wadankan ayana ay aaminsan yihiin in dhaqaalaha iyo horumarka iyo batroolkeenu uu ka meel sare ina gaarsiinayo uu yahay aynu ku wada dadaalo inaynu meel uga soo wada jeedsano inaynu gacan siino shirkadaha inoo imanaya iyo dadka ajnabiga ee ugu soo qulqulaya ee jecel inay wax la qabsadaan dhinaca kale iyaguna waxa halkaasi ka hadlay Mr. Megnan Norman iyo Maxamed Albarwan oo kamid ah mas'uuliyiinta sarsare ee shirkadda DNO ayaa waxay si ballaaran ugu mahad celiyeen mas'uuliyiinta sarsare ee xukuumadda Soomaaliland sida ay yiraahdeen ballaaran ay ugu soo dhaweeyeen dalka iyagoona sheegay in safarkan ay Soomaaliland ku yimaadeen ujeedadiisu ay sida ay shirkaddu u bilaabi lahayd shaqadeeda mas'uuliyiintan oo iyagu arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxay yiraahdeen thank you for the hospitality we got in Somaliland. We and our partners are here to explore for oil and gas, but we are also interested in mineral exploration. But coming from Oman, we are more interested in people-to-people relationship. We're interested in trading, in business. We are neighbors. Oman is only about 1.5 hours flying time from Somaliland. I'm delighted to be in Somaliland
today. This is the second time I've been here. Now we will be very often in Somaliland and the areas we will be operating in. And we truly hope that we shall be able to help the people of Somaliland, the government of Somaliland, and everybody else involved in finding what we are here to find, that is hydrocarbons in the ground. xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland iyo xukuumadda madaxweyne Axmed Silaanyo ayaa si weyn isugu maandhaafsan qaabka looga qayb galayo shirka wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya kadib markii xukuumadda madaxweyne Axmed Silaanyo ay shaaca ka qaaday in xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland aanay ka qayb gali doonin shirka wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya wariyahayaga Cali Mahdi Jibriil Xasan ayaa waxa uu warbixin ku saabsan khilaafkaasi ka dhaxeeya xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland nooga diyaariyay warbixintani. xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland ayaa meel adag iska taagay wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya waxaanay siyaabo kala duwan u sheegeen inaanay wada hadalladaasi aqoonsanayn kadib markii ay xukuumaddu sheegtay inaanay xisbiyada mucaaradka ay ka qayb gali doonin wada hadalladaasi oo ay tegayso xukuumadda kaliya taasoo xisbiyada mucaaradka ay ka soo horjeesteen wada hadalladan oo lagu wado inay bishan dhexdeeda ka bilaabmaan magaalada Ankara ee dalka Turkiga ayaa wajigii ee wada hadalladaasi waxaanay xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland siyaabo kala duwan u sheegeen in hadii laga reebo gudida wada hadalladaasi uga qayb galaysa Soomaaliland aanay aqoonsanayn waxyaabaha ka soo baxa isla markaasina ay iyagu wada hadal u gaar ah la furan doonaan Soomaaliya. wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Maxamed Biixi Yunis Soomaalinimadii xadii warfidiyeenada kula hadlayay xafiiskiisa ayaa sheegay inaanay xisbiyada mucaaradka ay qayb ka ahayn wada hadallada isla markaana ay xukuumaddu matalayso Somaliland waxaana uu tilmaamay in aanay qusaynin xisbiyada oo waxa laga wada hadlayana ay tahay arrin qaran waxaana uu yidhi marka arrimaha laga hadlayana waa arrimo qaran maaha arrimo xisbina ma khusayso waa arrin ummadda Somaliland khusaya dawladda Somaliland khusaya laba dawladood baa wada hadlaya. hadalkan ka soo yeedhay wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Biixi Yunis ee uu ku sheegay in xisbiyadii laga reebay wada hadallada ayaa keentay in arrintaas ay ka cadhoodaan xisbiyadu waxaana ugu horeyn ka hadlay xisbiga mucaaradka ee wadani oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa waxaana uu sheegay inaanay aqoonsanayn waxyaabaha ka soo bixi doona shirka wada hadalladaasi. gudoomiyaha gudida arrimaha dibadda xisbiga mucaaradka ee wadani Maxamed Ismaan Fadal oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa yidhi caburin dadka reer Soomaaliland ay dareemayaan inaan dawladoodii ay doorteen iyo madaxdeedu inaanay u awood furnayn una banaanayn una sheegayn. sidoo kalena gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Ucid Faysal Cali Waraabe oo isaguna la hadlay warfidiyeenada ayaa sheegay in hadii wada hadallada laga reebo xisbiyadooda ay wada hadal toos ah oo u gaar ay la furan doonaan Soomaaliya. anaga labada xisbina waxaan furan doonaa wada hadal gaar noo ah aan Soomaaliya furan doonaa anaga firtala nugu yeelinay anaga aan iyaga firta ugu yeeli doono. si kastaba ha ahaatee hadalladan iskhilaafsan ee xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka ka soo yeedhay ayaa kuwo iska hor imanaya isla markaasina jahwareer siyaasadeed ku riday dalka waxaana arrintaasi wajigabax ku tahay bulshada Soomaaliland oo iyadu fiirsanaysa falqalatooyinkan iskhilaafsan ee siyaasiyiinta dalka ka soo yeedhaya. guud ahaanba xaaladda siyaasadda ee arrimaha dibadda Soomaaliland ku wajahan ee ay kala aaminsan yihiin asxaabta mucaaradka iyo xukuumadda Soomaaliland ayaa ah mid qasan oo mid waliba hogooniya u socdo waxaana arrintan imanaysa iyadoo Soomaaliland lagu xasuusto inay ahayd mid isku waafaqda mar walba umuuraha dibadda iyo qaababka loo wajahayo hase ahaatee siyaasiyiinta dalka mucaarad iyo muxaafidba ayaa waqtigan jeexay waddo cusub oon hore looga baran dalka isla markaasina kaalin mug weyn ka qaadan doonta taariikh dambeedka Soomaaliland. xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa dhawaaqan uu ku sheegay inaanay aqoonsanayn wixii ka soo baxa wada hadallada ayaa ah mowqif adag oo wax u dhimaya midnimadii Soomaaliland ku nabad iyo caanamashay hase ahaatee waxa dadka jahwareer kale ku riday hadalka uu ku tiraabay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka Ucid Faysal Cali Waraabe oo isna sheegay inay wada hadallo la gali doonaan Soomaaliya ka mucaarad ahaan waxaana arrintaasi mar kale biyo kulul ku sii shubay wasiirka arrimaha dibadda oo matalaya xukuumadda Soomaaliland oo isaguna sheegay inaanay xisbiyada mucaaradku ka qayb gali doonin wada hadallada kala socoshadan labada xisbi mucaarad iyo xukuumadda
xukuumadda ayaa ah mid ugub ku ah dalka, balse ismaandhaafkan baahsan ee xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka ay kusoo kordhiyeen taariikhda Somaliland ayaa ah mid dhaawac weyn ku ah qarannimadii Somaliland ee lama taabtaanta ahayd. bulshada Somaliland ayaa qaybo badan oo kamid ah ay uga soo horjeesteen wadahadalada Somaliland iyo Soomaaliya oo ay arkayeen mid aan ku haboonayn qarannimada. hase yeeshee hilowga ay u qabaan wadahadalada Somaliland iyo Soomaaliya xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda ayaa ka cadhaysiiyay bulsho badan oo iyagu ku qancin wadahadalada iyo go'aamada madhaleysooba ee hore uga soo baxay afartii waji ee wadahadalada Somaliland ee hore. badanaaba xukuumadda iyo mucaaradka Somaliland ayaan ixtiraamin mansabka qaran ee ay u hayaan bulshada Somaliland, waxayna hadallo xanafa isku mariyaan warbaahinta Somaliland, waana kuwa mar walba baqsa horumarka uu dhinaca kale gaadho. bulshada reer Somaliland ayaa dhagaha ka fureystay afkana ka reebay hadalhayntii joogtada ahayd ee xaaladda siyaasadda, waxayna u badeen kuwo arka maqla dhaafana weerarka iyo weerar celinta xukuumadda iyo mucaaradka. qaybo kamid ah warbaahinta magaalada Muqdisho ayaa habeennimadii xalay ahayd baahisay warar sheegaya xaaladda siyaasadda Somaliland oo ay ku sifeeyeen mid qirinqiir ugu jirta xiiso ay sheegeen inay u qabaan laxaajoodka Soomaaliya. waxayna sheegeen in xisbiyada mucaaradka Somaliland ay yihiin kuwa danaynaya xal laga gaadho ismaandhaafka labada dal waa Somaliland iyo Soomaaliya ee halka ay sheegeen in xukuumaduna tahay mid doonaysa inay kaligeed shuqsato go'aamada wadahadalada ka soo baxa ee kama dambaysta ah. arrintan ayaa waxaa si aad ah uga cadhooday muwaadiniinta reer Somaliland ee qurbaha jooga oo iyaguna ilgaara ku fiiriya wararka laga baahiyo dalka, waxaana la arkayay jawaabo muwaadiniin reer Somaliland ay ku baahinayeen barkulanada bulshada, waxayna khilaafka siyaasadeed ee Somaliland ee ku wajahan arrimaha dibadda noqotay tan loogu hadalhaynta badan yahay dhammaanba warbaahinta afka Soomaaliga ah wax ku qorta. waxa qura ee la sugayo ayaa ah gadgadoonka khilaafkan iyo halka uu isugu biyo shubto. Ali Mahdi Jibriil, Bulsha TV, magaalada Hargeysa. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland mudane Cali Maxamed Waran Cade oo maanta qaar ka mid ah warbaahinta ugu warramaya xafiiskiisa magaalada Hargeysa ayaa waxa uu jawaab adag ka bixiyay hadal ka soo yeedhay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u injineer Faysal Cali Waraabe. wariyahayga Khadar Macalin Deeq ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Somaliland mudane Cali Maxamed Waran Cade ayaa jawaab adag ka bixiyay hadal shalay ka soo yeedhay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u injineer Faysal Cali Waraabe, kaas oo ku sheegay in xisbiyada mucaaradka ay wada hadal toos ah la furi doonaan dawladda Soomaaliya haddii laga reebo wada hadallada ay Somaliland dhawaan la gali doonto dalka Soomaaliya, kaas oo xukuumadda Somaliland sheegtay in laga reebay gudida ka qayb galaysa wada hadalladaasi xisbiyada mucaaradka ah. mudane Cali Maxamed Waran Cade oo maanta kula hadlay saxaafadda xafiiskiisa ayaa waxa uu ku eedeeyay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka UCID inay ka soo yeedheen hadallo dhaawici kara qarannimada Somaliland, waxaanu sidoo kale sheegay in aanay awood u lahayn xisbiyada mucaaradka inay wada hadal toos ah la furaan Soomaaliya, isla markaana ay jirto dawlad ka mas'uula dalkan oo matalaysa marka waanu arko Faysal Cali Waraabe waxa uu warbaahinta ka sii daayay waa arrimo keeni kara tuhun ballaaran oo ka muuqday hadalkiisa, isla markaana kullid ah qarannimada Somaliland, kullid ah iyo goonisutaagga Somaliland. waxaba yaraatee loo dul qaadan karana maaha. wuxuu ka hadlay Faysal wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland. arrintaa waxaynu ognahay inay hore u xidhnaan jirtay. waxaynu ognahay in golayaasha sharci dejintu ay sharci ka soo saareen ay u madax bannaynayaan madaxweynaha iyo xukuumaddu inay wada hadal la bilaabaan Soomaaliya iyo Somaliland. cidda mandate kalena waxa weeyaan madaxweynaha iyo golaha fulinta. way jirtay marar lagu daray muxuu ahay Faysal inuu ka mid noqdo guddida wada hadalka, laakiin sida aad la socotaan
khasaare badan iyo tuhun badan baa ka soo baxay kadib markii uu Faysal shirar gaar ah isagoo mandate-kii ummadda haysta iyo madaxweynaha haysta inuu shirar duceediyo la galay Soomaaliya oo aan la ogeyn wixii uu ka hadlay sida awgeed maantaba ciidan fulinta hayn baa ku jirta guddiga baxay waxaa ka mid ah golayaasha sharci dejinta ka mid cidda loo igmanayo ama lagu darayo ama laga naaqusayo hadba marka la tegayo shirarka maanta waliba madaxweyne tegi maayo wasiirada tegiya iyo muxuu ahay baarlamaanka iyo golayaasha sharci dejinta maaha wax la qaadan karo inuu hebel yiraahdo haddaan aniga la igu darin qaran ma jiro micnaha qaran ma jiraan markay tahayna sharciga waxay keenaysaa ama dhadhan ama muuqaal halis bay keeni kartaa oo qofku uu ku mutaysan karo cawaaqib xumo laga yaabo inaanu maanta dareemi karin hadalkii Faysal xalay wuxuu fariin qaldan u diray caalamka aynu ka doonayno ictiraafka oo sawir aan Soomaaliland jirin maanta ayuu gudbiyay Faysal oo ah kalsooni darro iyo dawlad la'aan iyo hoggaan la'aan iyo kala dambeyn la'aan ayuu caalamka oo Soomaaliland ka jirin iyo ummadeeda iyo dawladeeda midna oo maanta aynu ognahay dawladaha dunida ugu nabadgelyada badan ugu muxuu ahaayay wanaaga badan ee ugu deganaanshaha badan inuu nahay inuu Faysal caalamka aanaynu ogeyn ee qaaradaha ku nool diiradda inagu haya in la ictiraafo ma maanta la ictiraafo mise berito inuu la meesha waxba ma jiraan inaynan lahayn kala dambeyn oo ah inuu nin waliba Soomaaliya halka kaga beegan uu isagu la galo shir ama wada hadal awood uu leeyahay Faysal ma jiro waxaan bulshadu sheegayaa dareenka qaaday ama aragtay inaan meesha waxa uu sheegayo Faysal ay jiraan waxba kama jiraan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cadde waxa uu sidoo kale si adag ula hadlay saxaafadda Soomaaliland waxaanu sheegay in warbaahinta lagu qabto iyadoo ka hadlaysa warar qabaa'ileed ruqsadda lagala noqon doono oo aqoonsi ah lagu qofkan ka hadlay laakiin haddaan reer hebelnahay ma maqli karo waana mamnuuc waxaanan kala noqon doonaa ruqsadda TV-ga aan ku arko isagoo qabiilka soo deynaya TV aanu siinay kalsooni oo ah inuu ummadda waxa wanaagsan gaarsiiyo waxa xunna uu ka ilaaliyo taayna la qaataa ma jecla oo aynaan iska horimanin maamulka waxbarasho ee gobolka Maroodijeex ayaa waxay ka warameen waxyaalihii uu qabsoomay sanadkii hore iyo waxyaalaha cusub ee sanadkan u qorsheysan maamulka waxbarashada ee gobolka Maroodijeex sidoo faafaynta warkaasi uu noogu hayo wariyahayaga Saciid Khadar Cabdilaahi maamulka xafiiska waxbarashada gobolka Hargeysa ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland ayaa maanta ka warbixiyay waxyaabihii uu qabsoomay sanadkii tagay ee ina dhaafay ee 2013 iyo waxyaabaha uu qorsheysan sanadkan cusub ee 2014 telefishinka madaxa banaan ee Bulsha TV ayaa waxa xogtan siiyay gudoomiyaha waxbarashada qaybta galbeedka gobolka Maroodijeex mudane Xuseen Ibraahim Xasan Xuseen Dheere iyo gudoomiyaha waxbarashada qaybta bariga gobolka Maroodijeex Ismaaciil Cali Faarax Dhubato iyagoo sheegay in sanadkii tagay ee 2013 ay ku guuleysteen hirgelinta ward hospitaalka Hargeysa ay wasaaradda waxbarashadu ka samaysay kaasi oo loogu talagalay in la dhigo ama lagu xanaaneeyo macallimiinta bukoota iyo ehelkooda isla markaana ay kharashkaasi bixiso wasaaradda waxbarashadu sidoo kale waxay sheegeen in ay sameeyeen aadaan laga jaro mushaharka macallimiinta oo lagu kaalmeeyo macallimiinta ay
ay dhibaatadu la soo daristo sida geerida iyo aafooyinka uu xanuunku ka mid yahay. labada gudoomiye ee xafiiska gobolka Maroodijeex ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliland waxa kale oo ay xuseen in sanadkii tagay ay sameeyeen gaari ku wareega dugsiyada sare ee dalka kaasi oo ah mid ay ardayda ku samayso practicalka. dhinaca kale mar ay gudoomiyaashani ka hadlayeen waxyaabaha u qorshaysan sanadkan cusub ee imika bilowday ee 2014 waxa ay tilmaameen in ay qorsheeyeen samaynta ama dhidiba u taagida 5 dugsi oo cusub oo ah dugsiyada sare iyo ballaarinta iyo dib u habaynta 15 iskuul oo kamida kuwa ku yaala gobolka Maroodijeex. waxaana hadaladoodii kamid ahaa tirada guud ee ardayda gobolku waxa weeyaan 4,329 arday. waxa weeyaan gobolka oo dhan 4,329. waxaad halkaa ka arki karaysaa runtii baaxadda shaqo ee gobolka taalla. tirada macallimiinta iyo haddaynu gallo shaqaalaha waxa weeyaan waxa ka howlgala waxa weeyaan 1,622 macallin. 1,622 macallin baa gobolka shaqeeya. macallimiintaasi waxay ku kala fiirsan yihiin ama ka kala shaqeeyeen waxa weeyaan degmooyinka aan soo sheegay oo dhan. xagga iskuulla cusub Hargeysa wali ku jiraaye waxaanu iyana u sameynay fidin waxa la yiraahdo extension 15 iskuul. waxaanu kala u qoondaynay dib u habayn 15 iskuulyadana. waxaanu kala u qoondaynay iyadana inaanu qalabayno 20 dugsi waa degmada Hargeysa kaligeed. sabab wanaag u kaalay waxaanu iyadu dugsiyeedu way badan yihiin 18 dugsi baa ka dhisan. waxaanu iyadu u qoondaynay 8 dugsi fidintood in aanu ballaarin ku samayno iyo 3 dugsi oo dib loo dayactirayo. laaskeel waxaanu u qoondaynayna 1 dugsi oo dhaqaalaha guriga ah iyo 12 dugsi oo lagu darayo extension lagu samaynayo. cadaadley waxaanu u qoondaynay 3 dugsi oo cusub iyo dugsigii boodhanka ee cadaadley aanu isagana dib u habayn ku samaynayno. salaxley waxaanu u qoondaynay 6 iskuul oo cusub 10 fasal oo lagu darayo degmada salaxley 3 laboratory iyo 1 qol oo ah guriga habluhu ay markay break ama ku bedeshaan ama ay hawlahooda ku gaarka ku qabsadaan. dowladda waddanka Mareykanka ayaa waxay sheegtay in taageero military ay u fidin doonto dowladda waddankaasi Ciraaq. qabaa'ilka ku sugan magaalada Fallujah ee ay la wareegeen dablay Sunni ah ayaa lagu baaqay in ay gacan ka geystaan dagaalka lagula jiro dowladda. hogaamiye ka tirsan ciidamada dowladda ka soo horjeeda oo ka dagaalamaya Fallujah ayaa in ay ciqaabi doonaan cidii taageero u fidisa dowladda Ciraaq. golaha militariga ee Fallujah ayaa sheegay in ay fashilin doonaan qorshaha qaabka daran ee ay wado dowladda ra'iisul wasaare Nuur al-Maliki. dowladda ra'iisul wasaare al-Maliki ayaa lagu eedeynaya in ay si xun ula dhaqantay Sunniyiinta dalka Ciraaq. warkan ayaa imanaya iyadoo dowladda Mareykanku ay sheegtay in ay dedejinayso qalab military oo ay siin doonto Ciraaq. qalabkan ayaa la filayaa in dowladda Ciraaq ka caawiyo dagaalanka dawladda Sunniyiinta ah. dowladda Ciraaq ayaa sheegtay in ay dagaal kula jirto kooxo xiriir la leh ururka Al-Qaacida.
maamulka labada dawladood ee koonfurta Suudaan iyo dalkaasi Suudaan ayaa waxay ka wada hadleen sidii ay labada maamul u soo dhisi lahaayeen ciidamo si wada jir ah u ilaaliya ceelasha biyaha ee wadamadaasi. Suudaan iyo South Suudaan ayaa sheegay inay ka wada hadlayaan inay soo dhisaan ciidan wada jir ah oo difaaci doona ceelasha biyaha ee ku yaala koonfurta Suudaan. Labada dal ee koonfurta Suudaan iyo Suudaan ayaa ka cabsi qaba in ceelasha saliidda ay gacanta u galaan mucaaridka uu hogaamiyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee koonfurta Suudaan Riek Machar. madaxweynaha dalka Suudaan Umar Hassan al-Bashir ayaa maalin ka hor booqday South Suudaan halkaas oo kula kulmay dhigiisa dalka koonfurta Suudaan Salva Kiir. Suudaan ayaa sheegtay inay taageerayso in xal nabadeed loo helo dagaalka ka socda koonfurta Suudaan. ceelasha saliidda soo saare ee ku yaala dalka koonfurta Suudaan ayaa muhiim u ah dhaqaalaha labada dal ee koonfurta Suudaan iyo Suudaan. Suudaan ayaa waxa uu dakhligu ka soo galaa shidaalka South Suudaan laga soo saaro. dhaqaalaha South Suudaan ayaa gabi ahaanba ku tiirsan saliidda. mucaaridka ayaa qabsaday qaar ka mid ah gobolada saliidda laga soo saaro ee dalka koonfurta Suudaan. labada dhinac isku haya koonfurta Suudaan ayaa waxay wada hadallo toos uga bilowdeen magaalada caasimadda waa dalka Itoobiya Addis Ababa halkaas oo ilaa hadda ay uga socdaan wada hadalladaasi. daawadayaashada qiimaha iyo qaayaha la wada lahaantiinba meel kasta aad joogtaan intaas waxaan ku soo gabagabeynaynaa war wixii dalka iyo dibaddaba naga soo gaadhay oo habeenkan caawa aad ka daawanaysaan shaashada telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV xaruntiisa guud ee magaalada Hargeysa. daawadayaal warka waxaa idila socodsiinaya anigoo Cabdiraxmaan Cabdilaahi Maxamed Fantastiga anigii akhyaartiga la qayb qaadatay tabinta iyo soo diyaarinta warka dhamaantii waxaan kaga tageynaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh.